waxaan rabnaa haddii alla idmo qodobada aan rabno inaanu taarget garayno oo ama aan ka dhigno arrimaha koowaad ee barnaamijkayga inaan halka ka sheego wixii kale waa isla wadaagi doonaa kow waxaa ka ah amniga nolosha bini aadamku waxaa saldhigu ah ammaanka horumarka waxaa saldhigu ah ammaanka dhammaan waxaa la rabaa marka dadka reer Kismaayood inta dhageysanaysa iyo inta hadda halka fadhidaba inaan ugu baaqo inay la shaqeeyaan laamaha amniga kala shaqeeyaan ammaanka la shaqeeyaan amnigu waxa hoggaamisa dawladda hay'adaha amniga laakiin dhinaca kalena waa mas'uul wadareed qof walba habeen hadduu sixdo Kismaayo amniga qayb buu kaleeyay inuu wax ka ilaasho marka sidaa darteed waxa laga maarmaana in amniga ka shaqeyno haddayna amniga ka shaqeyn ma samayn karno horumar amnigu marka waagii hore waxa iska jiray tuug meel taagan iyo mid burcado iyo wax dhaca iyo oo boolisku intay yaqaanaan hebel baa halka jabsaday hadda waa ka gudbay waxa jira kooxo sharwadayaal ah oo ummadda dhibaato ku haya kooxahaas iyo dawladuna siyaasad cad bay kala yihiin ciidamaduna waa la dagaalamayaan annaguna waa la dagaalamayna annagu ciidamada la shaqeynayna waa laga yaabaa dad meelaha joogay dadku inay baqin iyo cabsi gelin ku nool yihiin anigu maanta shaqadan la wareegay inta magaalada Kismaayo aan ka xukumo kama shaqeyn karo idna xukumo aadi karto shabaab warkaas waa cadiya Soomaa meelaha ay joogaan oo hadda haystaan annagu idinma dirno xukunka ka shaqeeymo oranne ninkii la joogo oo xoolihiisa ku dhaqanaya annagu ma haysano laakiin waxa halka qaadi weeyeen oo xukunka jilbi geedi weeyeen oran annagu idin dhiibi weynay in la idin soo dhiibo wiil gool hoosti fadhiyo gudoomiye degmo sheeganaya arrintaas ma aqbalayo haddeer golo waa saymo waa la marxaanti dadku waana madal yeena bari isugu imaan haddii xukunkaas laga soo qaato marka kuwaad waxba kama jiraan marka labaadna cidda soo qaata sharcigan u geynayna intaas waxaan rabnaa inaad hadda lageena gashataan qodobkayga labaad waxa weeye waa horumarinta magaalada Tanu waa magaalo taariikh weyn waa magaalo ummadda Soomaaliyeed oo hadda 4.5 iyo 4.5 loo qeybiyay ay degan yihiin haloo kala badnaado adduunka dhan baa saasa laakiin macnaha ma ahan kii badan inuu xaqiisa u leeyahay kii yar xaq lahayn magaalada saasay marka maanta say u agtahay ma ahaan kadho waxaan u baahanahay magaalada Kismaayo oo qurux badan oo nadaafadeeda ay tahay clean waxaan u baahanahay magaalada Kismaayo ifaysa oo life leh waxaan u baahanahay magaalada Kismaayo oo dhammaan arrimaha bulshada laga helo arrintaasuna waxay noqonaysaa wax idinka timaado aad igala shaqeysaan waxaan rabnaa inaanu iswaafajino xooggiina xoolihiina maskaxdiina iyo hogaankayga aniga tiimkaygu waa iswaafajina xoolu jeebkeena ku jiraan magaalada lagu dhisayaa jeebkeena xoolaha ku jira arrinta diyaar ma tihiin gudoomiyaasha degmadu way maqlayaan xaafaduhu waxay ku tartami doonaan nadaafadda magaalada iyada la isku abaalmarin doonaa xaafadii ka hartana cidda mas'uulka ka ah hadiyada banaanka soo dhigtay annagu uma aanan haysano iyada iskeentay waxaan rabnaa tartan inuu socdo magaaladaanu ay la tartanto magaalooyinka adduunka haddaan hadda sii faanfaano waxaa loo leeyahay faan badan baa yimid laakiin wixii kale waa iska sheekaysanayna laakiin arrinteedu ujeedku wuxuu yahay magaalo qurux badan oo aan wada samayno waxa laydinka qaado waxa lagu qabanaya qayb baa ka noqonaysa in transparency cad inay wuxuu yihiin noqon mayno qof xulaab xun oo wax qarsada oo laga shakiyo halkaasaan dhigaynaa waxa laydinka qaadayana waxaad ku noqonaysaan qayb baad ka noqonaysaan saynu u helno hufnaan iyo nidaam ka maran musuqmaasuq waxaan ku shaqayn doonaa cadaalad xafiiskaygu ma noqon doono
mid laga abaabulo cadaalad darrada mid laga abaabulo dadkan lagu dulmiyo waxaanu gaari doonaa oo rabnaa inaan u shaqayno kuwa aan codka lahayn oo masaakiinta ah kuwa baahiyaha gaarka qaba haddii alla maxay mas'uul baan laga saaray arrintaas waxaan rabaa inaan ka wada shaqayno qabyaaladda meel iska dhigno magaceedu waa reer Kismaayood Kismaayo waa Kismaayo dadka joogaa waa reer Kismaayood intaasaynu aadaynaa beleedkan jabitaanka soo soo weelisay oo qabaayadkaana waa iska dhigayna xagga wasaa diyaar ma tihiin Soomaaliya soo soo dagaalamayay qabiil macaan lagu yeelan waa dhinaca kale u foganaayo deegaan baynu bedelaynaa si aynu qorshe qurux badan aynu Soomaaliya wax la qaybsano taasuna waxa weeye horumarinta waxaan ku sii darayaa waxaan diyaar u nahay qof kasta oo keeni kara fikrad lagu horumarin karo magaalada chance baan u siinaynaa hadduu qoraal ku keenayo iyo hadduu af ku keenayo labadaba xafiiskuna waa idin furan yahay arrinta saddexaad waxa way dhulka magaalada tan dhibaatada ugu badani waxay ka taagan tahay dhulka waxaana sababaya waxay ahayd magaaladii Soomaaliya 30 sano dagaalkii sokeeye ugu dhibaatada badnayd maalin boqol tagaysay maalin boqol imaanaysay qof kastoo yimaada oo mid kale ka qabsado dhibaatadiisu ka tagay waa isdul fuufuuleen 9 jeer baan u maleynayaa dhabahay la saaray hadda maamul baa dhisan oo sharci baa dhisan qofku kale waa ku fakirin in cid tagaysa ay jirto oo mid meelaha taagtaagan imaanayo sharci iyo nidaam baa lagu imaanaya qofka imaanaya saan uu ku yimid oo kale haddaan bari tagay waxaan ku tagayaa warqadii lagu magacaabay arrintaasuna xisaabta dhulkaas saas weeye waxaan ka fakaraynaa annagoo la tashanayna hay'adaha ay khusayso wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda hawlaha guud dhammaan cid kasta oo aqal u saaxiiba madaxweynaha dawladda Jubbaland inaanu keenno hal waara oo dhulka laga gaaro arrintaasuna saasay noo noqonaysaa halkaas waa idin waagi doona haddii alla idin qodobka afraad waxa weeye ilaalinta deegaanka deegaanku waa nolosha bini aadanka hadda geed baynu hoos harsanaynaa hadduusan maanta geedkaan meesha ku olaadeen intaasoo madaxo mas'uuliyiin meesha ma taadin biri ilaa deegaanka ila ilaaliyaa waa lama taabtaan in la iska socdo oo dhulka la iska jaro oo dhuxusha laga gubo oo maxay ahayd bugcadaha la iska fisado oo weelintuu geed dooxa soo galo iska baabiyo buuro dhan geedaha ku yaala arrinkaas sax ma labana aqbalayo waxaan ka wada yeelayn meel walba si qof caraaba inuu niman meel dego oo qabiilba meel dego oo awoodii dadka la kala dhumiyo xoogii biyihii caafimaadkii waxbarashadii markii dadku hadda isku meel joogin dee waxa weeye waxba lama gaari karo deegaan markii la sameeyay dawlad baa sameeysa deegaan reerna ma sameyn karo inuu dego qofna ma sameyn karo haddii deegaan cusub la sameynayo waxa lagu sameynayaa qorshe dawladeed hay'adaha khusayso dhan baa isugu imaanaya waa go'aan baa laga gaarayaa kadib dawladda dhexe oo madaxweynuhu sareeyo baa saxiixaysa meesha magaalada ku habboon tolday haddeero nin uu kala sii gelinta ordid meel heeryada hadhigan oo wax ka qoqodan aan lagu fasixin wixii kale oo jira waana iga horeeyay hadday amniga caqabad ku yihiin ama aan si kale ay yihiin dib baa loo fiirinayaa cadaalad baa la sameynayaa meeshii u qaranta si dadka loo maalgeliyo waxbarasho iyo biyo loo geeyo waa la sameynayaa arrintaas waxaan uga digayaa saan u leeyahay waxa la yiri labo markii isqabata heshiiskooda hore xumaa marka hadda waxaan rabaa in waxaynu bari isugu imaanayn aynu hadda ka wada hadalno meediyana inta jooda aan marino deegaanku saas weey canshuuraha dadka waxa loogu adeegaa waa canshuurta amniga lagu sugaa ciidamadu furimaha u fadhiyaan waxa loogu adeegayaa waxa dhan oo dawladda ku soconto waa shilinka canshuurta ee qofka laga qaado
waxaa rabaa in canshuurta la bixiyo annaguna waxaanu samaynaynaa barnaamij annagoo kaashana wasaaradda maaliyadda wasiirka waa fadhiyaa inaanu canshuurta dardar gelino weliba musuq maasuq aanu ka ilaalino waxaanu samaynaynana ay noqdaan wax cad hantida dawladdu waa hanti qaran ama degmadu ha lahaato ama dawladda dhexe ha lahaato oo Jubbaland hadda dawladda dhexe Jubbaland baa u ah tii dhexe isteediyaal la sameeyay sax u qaadanina ama ha lahaatee hanti qaranka ka dhaxaysa weey mas'uuliyadeeda waxa iskala inay ilaaliso degmada inay ilaaliso tan ku xigtaana waa wasaaradda arrimaha gudaha anaga nuxu aan ka tirsanahay iyo wasaaradda hawlaha guud nidowna ha ku fakirin inaad hanti dawladeed oo qof iska ka dhaxaya adiguna aad qaadatid oo iska dhisatid oo halka kala baxday ha iska gelin kharashaadkaaga wixii aan si sharciya ku waafaqsanayn ku imaan nidaam sharci ah oo dawladeedna waa laga celinaya waxaan rabnaa inaynu nidaamka sharciga ah oo dawladnimo ku fariisano ma ahan qabiil Jubbaland baa dhisay way shaqaysaa haddayna gacmaha isqabsan oo sharciga raacinna kuma shaqayn karno xeer jajab markii xeer jajab xagga dhigaynaa hore baan u soconaynaa hantida waxa ku jirta dawladda hoose qalabka waxa ay leedahay oo maanta anigu aan la wareegay waa hantidu ku leedahay la ku shaqaynayo waxaan jecelahay maalinta aan wareejinayo waxa la igu wareejiyay hadda qoraal baahidaan la akhriine iyadoo akhriso oo dadku daawanayaan inaan hadii alla idmo sidaas aan ku wareejiyo waa hadii ilaahay idmo dib u heshiisiin oo qodobka 7 ah dhinacna socota barnaamijkan oo dhan wasaaradda arrimaha gudaha baa nooga mas'uula dadku wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin loo sameeyo waxaan furaynaa dib u heshiisiin ummadda oo dhan ah in la iscafiyo wixii dhacay hore u tagaan dib la isugu raacan aynu hore u soconno aadnana maamul wanaag qofna qof awsan wax u tirsan kana guurno waxa weeye bilaadtan la isku salaaday reer hebelkaaye aynu aadno abtirsiga ah Jubbaland degmada Kismaayo Soomaaliya maxaa ka inta ka fiican raadinayna yaa masawaha rabtaan inaad fijfa noqotaan oo nima meel u socdo waxaan rabaa marka ugu dambeyntii qofku markuu shaqo hayo banaanka waxa ka arka waxa khaldan dadka banaanka jooga waxaan u baahanahay taladiina waxaan u baahanahay qofka xafiiska imaanaya tala inuu wado magaalada tan wax laga qabanayo laakiin hadduu wado hebel baan waa la dulmiyay hebel baan shaqo raadi shaqa iisi wax ka hadda iska tira badan aan sheegay karin hadduu waxa wado waxa dayacmaya dantii magaalada tan dayacmay magaaladuna waxay noqonaysaa magaalo aan helahay hadhoona waxa leeyahay ma yaxun baa yimiyo waxa waa qaban waay wadabiga anaga saaraysa marka waxaan rabnaa taladiina u baahanahay taladiina keena xafiiska taa keena intaas waa talooyinkii waxaan u baahanahay qof kasta oo reer Jubbaland ah inuu nala shaqeeyo dhammaan mas'uuliyiinta hadduu noqdo hadduu barlamaanada qaybaha kala noqdo iyo hadduu shacab noqdoba arrintan waa soo dhaweynana in yar baan ka kaftamayaado meelahaas waxa lagu qorqoraa waxa weeye in balaayayo imtixaan oo askari soo ahaayo meel kale joogayo waxaas waa iska badan yihiin anu horta waa suuqa sharaxaya marka anu wata Kismaayo baan inta badan waa ka waraysa wixii kale oo durarka ah ka sheekaynayo waxaan ka soo jeedaa qoys talo waxa ilaahay caaqil dadka waxaan ku hogaaminayaa aqli iyo caaqilnimo iyo dawladnimo laba koob baan leeyahay mid waa dacar midna waa malab kii dambiila iyo dacarta doonta kaas uu laqaya yaa ninkii Soomaaliya reer Kismaayo sharaf leh dadka abniga siiya malabkaas uu laqaya marka waa wado
يلا كلا قاضية ديار موتين ساسا إنه كوبالمي وحالي مقاله ومضل أنتي توتا ومرخانتي ما أنت لابد يكون يكوب يلا واتنكي بشي الحاد بشي كوي تبناد لحية ديوي سوما يلا هو تسمع كله وديك دقمة كارني قال له شو قاري كوي لاتناد ما أنت وريتشين أيوه وحن بلن قاضي حد الله يدمو إن أنكو وريتشين مياك قرطان فالدوكومنتي ومدوا دقيسان الساعة هذا وانا دوانته هو هيستوري عند ماين انت عشان كسر جبين يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته